السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلامي أمد الصوماليات ميلي جوغان با انتو محيتيني صومالي دا لبتا وان سلامي إنا لله وإنا إله راجعون محمد وهو رسالة كان محيتيني وتعسيدين يا دمان سراكيشي halkaa محيتيني lagu laayay ilaahay ummadda islaamiyeed samriye iimaanka ka siiyo iyo ehelkoodii iyo qaraabadoodii Soomaaliya waa loo soo tafaxaytay waxay u soo tafaxaytay niman maxay hayteen calooshooda u shaqaystayaal ah Soomaali assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamay dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamay dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel joogaan ba inta wadaniyiinta waan salaamay maxay hayteen xalaasha ah waan salaamay salaanta islaamka ayaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaaliya horta waan idin salaamay Soomaali waa dad fiican oo dad maxay tahay wanaagsan intooda badan waa dad dawladnimada jecel marka insha Allah taala mawduucaygan ka gudbinay horta waxaan halkan uga tacsiideynaa dhammaan maxay tahay saraashkiishii hore iyo kuwa dambeba ee halka lagu laayay ee gacanta ka xaqdaran ay dishay ayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baryaa in ehelkoodii iyo qaraabadoodii iyo ummadda Soomaaliyeed basamriye iimaanka siiyo iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala u naxariisto qabriga oo waasiyo oo kitaabkooda midigta ka siiyo إلهينا كو إرساقو جنة فردوس أعلى قعن خذ رنبات الشيء إنا لله وإنا إليه راجعون يعني لنا هاي انتا كدي صوماليا مر هوري أيا هوق لغردي مر هوري أيا هوق لغردي إذ ألا العيد أقينا ما جرتو وحوال بنو حلقو أقادي دولة محيتني محاها مدحوينا هذا تشوق أيا لغو أقادي إن ودن كان يهوق وكتشرو إن نمان محيتني أي قولي ستي أي أهشيين ومدبقوا محيتني قبل قوستي oo halka uu markaa maxaytani uu maxaa ummadda Ilaahay ku cuni jiray qofkii iyo Soomaalinimo lagu arkana qoorta loo dheeran jiray oo uu noolaan jirin ayay ku heshiiyeen cid ogeydna ma jirto dress baa loo soo xiran jiray suud baa loo soo gashaday halkaas waxaan ku yiri maxaytani khudbad been looga akhriyo jiray Soomaalidana waxaad moodaa sideeda banaanba horta Soomaalidu waa dad dhiig leh laakiin marmarka qaarkood waxaad moodaa in dareemayaashooda dhinteen in waxba ogeynba الحمد لله رب العالمين وحول بهذا وحلقوا أقادي بقى دور الشدي محيتني محمد عبد الله فرماتشو أيا لقوا أقادي والله أركا وحول بوي عديهين شباب محيتني ويترتاه لكن شباب تدد كلاين الساعة واني ما كتشاتوستا كايا إيا إماراتك أوفن قرينيا نيمان كاسا دد كلاين يبين للشيقين عيدا كما أقول إن لدسو واتي لهاين عيدا كمحيتني محالو رسيا واتي تركي كوي هايستين أو لهاين تركي عيدا بونو رسي waa ku ilaa hadda ciidanka xuduudka la geeyay laga soo qaado waxaas oo dhan Soomaaliyeed wad ogtiin nimankani ma rabaan ciidan la dhiso nimankani ma rabaan Soomaaliya inay maxay tiri dhaqdhaqaaqdo waa niman nin walba maxay tiri caruurtiisii intuu adduunka geystay oo ka ugu sokeeya ay Turkiga u joogaan oo jaamacada ka baxeen yaa doonay caruuro kale iyo maxay tiri dad kale oo masaakiina inay ku duldheelaan qofkii Soomaalinimo lagu arkana qoorta loo dheereeyo إيمك عيدن كبير صادق واتين كل أرتين إن لاين عيدن كوانا كوالينيا وحلينا أنا وإيجا وتشاتوستي إمارات كويس وتصومالية يام بيلس كوشين عندها فرطة وح عيدن كلينيا وكان يا إماراتك يا تشاتوسين تا إنه قد حشرة نمان كأفكار دوبنا إيمان تلوي تمحيتني بدهرات كس محيت محاها سمينا محاها أفرتها برودي مدبر قريها لدى بتشوقي سنك وحدنا nimanka way nimanka dadka laaya ay dirsadaan nimanka jaajuusta bayna u shaqeeyaan halkay joogeen markay dadka laayeen ay ka soo hadli jireen oran jireen muxuu ahaa shabaab baa xadishayna halkaas ay joogaan maxay tani mar magaalada way ka saareen mar way soo galiyaan in maanta muxuu ahaa shalay muxuu ahaa nimankii halka saraakiisha halka lagu laayayna iyaga laayay cid kale ma lidin ee halka lagu laayay cid kale ma dilin iyaga dilay jaajuusinta dishay Kenya dishay madaxweynihii waa tan waxaan ku yiri san kasta loo galiyay lama rabo dawladnimo inay dhaqdhaqaaqdo lama rabo maxay tahay Soomaaliya inay dawlad noqoto Soomaaliya waxay noqotay xero dhiig bay ahayd la rabo in laga ganacsado oo niman maxay tahay qowlatay ay ku heshiiyeen inay 4 sano bayn doortaan 4 sano mid 4 sano mid 4 sano mid 4 sano saasi ku heshiiyeen dadkan bay yiraahdeen wax ma garatada ana yaa waxba dib ma oga waynu ku dulshaxaynaa xuma oga suurad beenaynu xiranayo bishiiba ama labadii wiig mar bay isugu yeerinayo qodbada maxay tani waxba ka jirin oo akhriyayna inta kalena dawaamin qurbaha iska joogto wax le waxay kala ogyihiin aan jirin
marka Soomaaliya indhihiina fura ka kaca dowladda isbarbar taaga nimanka iska saara shacabka Muqdisho jooga 10 jaajo iska saara wallahi inta ka badan baa soo socota oo inaanay maxaan ku yiraahdaa inay ku ekaanaynin maxay tahay saraakiishan maxaa ahaa dhowr iyo 10 sarkaal ilaayeen inay ku ekaanaynin ka badan bay leynayaan dabadeedna xilli shabaab baa dishay saasay dadkii ku marayaan shabaab baa dishay maalinba sarkaal bay dilayaan shabaab baa dishay saraakiisha ciidanka leynayaan shabaab baa dishay shabaab waxa la yiraahdaa ma jira shabaab yaga ah oo jaajuusin yaga ah oo calaamooyin lagu ridooyin dhulka la gooyin yaga ah tuugadana imaaradkii Kenya dabada ka wataan Soomaaliyeed kuwana ah iska saara oo shacabka Muqdisho jooga iska saara qabyaalad intaad ay idin madax mar lahayd waa idin madax martay waad ku dhimateen waad baadeen waad hoogteen waad tahriibteen bal hooyadii intii la ekay ee gurguuranaysay ee iyadan ordi karin maxaa soo saaray waxaan daawaday fiideo sir ah oo la leeyahay $1 habrahaas oo kale $1 baa la siinayay nimanka maxay tahay sanku xidhnaa $6 baa la siinayay askariga yaa askariya $6 siiya yaa urweyn ah $3 siiya yaa wariyayaala oo kabaradaha ka duubayay iyagana maxay tahay $6 siiya dad bay qasbayeen ka waran cid soo banaan bixi lahayd ma jirto dad bay intay saa maxay tahay ay guryahooda ugu daarteen waliba dad isku faamal yihiin ay guryahooda maxay tahay cid fariimo iyo dad ugu wada dirdirteen bay soo ururiyeen halkaas $1 $2 $3 askariga ugu badnaa maxay tahay oo maxay tahay askari beeleedka ayaa $6 la siinayay way ogyihiin nimanka kani 3 jeer ayuu tanaasulay madaxweynuhu doorashadii waxay diideen qof iyo cod uu ka tanaasulay madaxweynuhu waxa la yiri maxay hitay waxa la qabanayaa doorasho maxay hitay marka qof iyo cod way diideen xasan sheekh maalintii maxay hitay xilku ka dhamaaday guddiga maxay tahay doorashada isaga soo dhisay cid kuma qabsan xilkii baa ka dhamaaday 6 bilood buu ku darsaday cid kuma qabsan sheekh shariif ninka la yiraahdo sanad buu ku darsaday cid kuma qabsan guddiga doorashooyinka isaga soo dhisay madaxweynaha hadda jooga fartu sida u qaadaba way barbar taagay madaxweynaha ma badiidana waad maqlaysan Soomaaliya habeen yamaan xilliga doorashada xilligeeda bay ku dhacaysaa diyaar haddana markay soo istaageen in maxay hayteen guddiga wax laga bedelo waxa lay guddigiiba wax laga bedelaya ma rabaan waxa doorasho iyo nimanka kani doorasho iyo afaar ma rabaan waxay rabaan dagaal sababta waxay way ogyihiin aan cidina dooranay inaan cidina wax ku faleyn inaanay doorasho ku soo baxayno halka ayna waxaan kursiga ku soo noqonin ilaa bariga Ilaahay u kasay mooyaane bay ogyihiin marka waxa weeyaan dagaal bay ku jiraan waxay doonayaan Muqdisho in dagaal ka ridaan marka 12 nin ilmo Kenya yiraahdo anigu iyo maxay hayteenay labada xunxun ee maxay tahay midna uu xukumo maxay tahay dina calool weyne Axmed Madoobe nimanka hadaan la iska qaban Soomaaliya ma degana waa kana hadda Kenya dagaal bay soo abaabulaysaa ciidan bay maxay tahay ururinaysaa maxay tahay Maleeshiya beelad ah oo Soomaali ah bay ururinaysaa oo hubaynaysaa xuduudka oo iska soo horeysiinaysa waxay doonaysaa dagaalka markay soo galaan iyaguna inay ka soo daba galaan gabaad bay ka dhiganaysaa waxaana la diyaarinayo maxay hayteen Madoobe dhuxulayste war Soomaaliya maxay ka siya war Soomaaliya hurdada ka kaca Soomaaliya hurdada ka kaca maxaa idinka qaldan war waa layna iibsaday oo wadanka waa la iibsaday oo dalka waa la iibsaday oo badda waa la iibsaday oo bariga waa la iibsaday oo waxaan ku yiri adduunka waa lala kala dhaqaaqay Soomaaliyey ilmo jaajuusna waxay ku rarayeen madaxweynaha waxay caayaan madaxweyne dawladii waxay caayaan maxay tiri bal qof arkaya oo dalkoodii iyo dadkoodii bal raba in la iibsaday muxuu ku hadlay aan wixii soo daradoodan bal yaabay maxaad ku doodi maxaad ku hadlay haddaad wax qaldan aragtid hadalba oo kaba qabyaalado laakiin saacadan maxaad ka qabyaaladoon waabad aragtaa waaba lagu iibsaday baddaadii iyo barigaaga waa la iibsaday qabyaalad xagay ku soo martaa bal arkan wadan kasta mucaarad uu leeyahay arka maxay haytani Soomaaliya maanta ma joogaan
niman jaajuusiina oo wadankooda kenyaati oo wadankooda kasoo horjeeda ma joogaan soomaaliya oo soomaaliya maxay tiri kenya cadow usoo hogaaminaya oo kenyaati iyo soomaaliya ma joogaan laakiin soomaaliya waxaa jooga kuwa soomaali ah oo jaajuusiin u ah kenya ayaa jooga kuwa soomaaliya oo maxay tiri oo ah imaaraadka jaajuus u ah baa jooga hubkii baa loo soo gelinaya oo lacagtii baa loo soo gelinaya oo ay maatadii iyo carruurihii u adeegsanayaan oo ay ciidamadii ku laynayaan warma waxa awoodi kari weydeen hoteelka xunays uu joogo iyadan dowladaba u tegin in idinka oo shacab ina ka saartaa war idinka qabyaalad maxay idin taraysaa war kiina curyaanka wuxuu taraynin nimankan wuxuu taraynin markay madaxda soo ahaayeen oo kiina indhaha la wuxuu taraynin markay madaxda soo ahaayeen oo kiina baahan wuxuu taraynin markay madaxda soo ahaayeen oo kiina tahriibi wuxuu taraynin markay madaxda soo ahaayeen oo gabdhaha maxay tiri iyaga Sacuudiga u tahriibinayeen oo sida waxaan ku laba iyo saddex waxaan ku mushaharkooda marka la siin waayo oo ay yiraahdaan mushaharka ay ganacsiga dabaqada laga soo tuuray ay meel ku dhimanayeen war maxay idinka qaldan war Soomaaliya is Quraan saar Soomaalida Muqdisho joogtay maxay tiri Quraan saar baad u baahantiin is Quraan saar oo Ilaahay ka baqa oo qabyaalada inta iska daysan nimanka hotelka Jasiiro ugu tago iska saar ciidanka bay hadda saawleynaya niman kale maxaa ciidanka loo dhisay ma nimanka rajo maxay tiri kale Soomaaliya oo ciidanka laga soo qaaday xuduudka ma nimanka rajo leh rajo male waxaad maanta ugu qabyaaladootaan iyo waxaad maxay tin ugu hadashaan iyo waxaad ku barbar istaagtaan meesha weeyaan anigu waan ka wisaabo waan u qajlaaba dadka maxay tin kuwa laha maxay tin u hadlaya xasan fiifa sheekh shariif fiifa maxaad fiifayna adaaba lagu iibsanaya wadankaagii baa la iibsanaya baddaadii barigaagii baa lagu socdaayo saraakiishaadii baa la leeyahay maxaad fiifayna xaggaad ku haraysaa biri ka maalin war meel lagu adoonsadaad rabtaa naamse meel lagu adoonsadaad rabtaa war isku xishooda dadkiina maxay tahay jaajuusiinta ee ilmo jaajuus ee qabyaaladu madax bartay isku xishooda waxaan la hadlayaa ninka la yiraahdo Shiina Culayo waxaad joogtaa Jarmalka markaasaad madaxweynaha sharaf waxaad ku raadinaysaa fiis ku raadinaysaa meel walba waad martay wax walba waad ka hadashay wax walba waad ka sheekaysay maanta madaxweyne farmaajo soo dhigatay wadanka aad joogtid baan kugu dacweynaynaa wadan sharci leh baad joogtaa sharciga ayaa ku qabanaya afkaaga haddaadan qabsanin oo aanad afkaaga qabsanin wadankaagii baad ka soo carartay oo wadan kale dad maxay tahay dad dhisdeen oo maxay tahay system iyo kala damir iyo sharci ku nool yihiin bad nacnacda ka haysa oo madaxdii ka aflagaadeynaysa dadkaasa Soomaali ka dhashay maxaad ku aflagaadeynay adaaba lagu haystaaba ciidankaagii baa la leynayaa hadda dawladani miyay qaldan tahay Soomaaliya wadankiiba oo la iibsaday oo bari hore hog lagu riday ayaa maxay tahay la badbaadinaya oo ay rabtaa dawladani inay badbaadiso yaa oo ay cadawgii bur kaga reebto miyay gardaran tahay wax lagu caayo wax lagu aflagaadeeyo meeshan miyay yaala waa maya dadka maxishoodayaasha ah ee qabyaaladu maxay tahay madax martay oo indha martay ee aan waxba kala garanayn ee damiirkoodu dhintay heede ee wadamada shisheeye jooga ee maxay tahay xoogaaga yar maxaa ahaa cayda qaata dadka way dadka laga fadhiili yahay ee Shiina Culayo ka yahay iyo in kala damiir laawayaala oo maxay tahay iyaguna jooga maxay tahay Soomaaliya laakiin Soomaali inteeda badan boqolkiiba boqol waa wadaniyiin wayna ogyihiin waxa dhacaya marka inta waxaan ku yiri mooryaanta ah inta dawladnimada iyo dalka jecel ayaa ka badan FIFA ayaanu leenahay dawladda hadda joogta no soo laabo 30 sano dambe ilaa wadanku caga dhiganayo mid kale farmaajo kale aanu helayno nimankana Soomaaliya iska saar nimanka Jasiiro ka saar oo hotel Jasiiro ka saar oo Muqdisho ka saar oo iska saar hadda ciidanka beelaynay wayna ku dhaarteen ilaayeen waa shabaab wax la yiraahdaa ma jirto wax shabaab la yiraahdaa ma jirto been la isku sheegay shabaabaan jaajuusiinta ahayn imaaraadka Kenya ku adeeganayaan ma jirto shabaabku waa yaro ayda iska yaacayso iyaga la shaqeysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.